Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa warmurtiyeed wadajir ah ka soo saaray wadahadal ay maanta ku yeesheen magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Wadahadalka ayaa yimid kadib markii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta Kenya ku tagay caasimadda uu ka helay dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Kadib wadahadal ay yeesheen ayay labada madaxweyne isku raaceen 11 qodob oo la xiriira xoojinta xiriirka labada dal. Qodobada ayaa waxaa ugu waaweyn in labada madaxweyne ay xaqiijiyaan inay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada si loo xaqiijiyo guulaha laga gaaray. Waxayna fareen hay'adaha amniga labada dal inay isku raacaan dadaaladooda ku aadan ka hortagga dhibaatooyinka argagixisada ay ka geystaan labada wadan. Warmurtiyeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada madaxweyne ay isku raaceen in dib loo bilaabo duulimaadyadii shirkadda Kenya Airways ee Muqdisho sida ugu dhaqsiyada badan si waafaqsan heshiisyada adeegga hawada labada dal ee loo yaqaan BASA, kaasi oo dib u eegis lagu sameyn doono. Soomaaliya iyo Kenya ayaa sidoo kale isku raacay in la fududeeyo sarana loo qaado iskaashiga ganacsiga labada dal iyadoo Soomaaliya loo furayo inay suuqyada Kenya u dhoofiso kalluunka halka Kenya ay dib u bilaabayso dhoofinta qaadkii laga jaray xilligii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kenya ayaa sidoo kale ogolaatay in mas'uuliyiinta wata baasaboorka diblomaasiga iyo kan adeegga dadweynaha sarfayska ee Soomaaliya ay fiisaha Kenya ay ku heli karaan 48 saac gudahood marka ay codsadaan online-ka. Sidoo kale labada madaxweyne hoosta ay ka xariiqeen in dadka wata baasaboorka shacabka Soomaaliga si degdeg ah ay fiisaha Kenya ay ku helaan iyada oo loo doorbidayo in lagu siiyo 10 maalmood gudahood. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta waa madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Kenya ayaa sidoo kale isku raacay in dib loo furo xuduudda labada dal si loo fududeeyo dhaqdhaqaaqyada shacabka labada dal. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale faray guddiga wadajirka ah ee labada dal inay ku kulmaan magaalada Muqdisho bisha Agoosto si ay u xoojiyaan dardargelinta horumarinta iskaashiga labada dal.